بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأستاذ محمد خالد كترسن كلية عافمتك جامعة بريق أفريقيا. waxaan aad u jeclahay in aan casharka microbiology-ga lecture-ka introduction-kiisa aan u duubo ardayda semester 1-ka ee public health-ga ama ciddii kale oo ka faa'iideysanaysa oo rabta inay fahanto waa maxay introduction to microbiology. haddaba microbiology-ga maadadan saa u aragtaan maado inta badan ka hadasha maxay micro waa maxay waa small, bio means waa maxay waa living things, login macnaheedu waa maxay waa study. marka waxay inta badan ka hadashaa waa noolayaasha ilma aragtayga ah barashadooda. haddii definition ahaan aan u qeexnan waxa weeyaan waa science-ka is the science that deals study with very small organisms. waa science waa cilmi la dhiilgareeya barashada ilma aragtayga aadka u yaryar. haddaba microorganismska marka la dhaho measurement ahaan hala cabiro iyaga kiilo iyo nus kiilo iyo wax lagu cabiro, laakiin cabir ahaan waxay leeyihiin loo yaqaano microns. marka kelmadda micros aan ku sheegay waa small, bio means life ama living things, login waa maxay waa study waa barashadii. haddaba microbiology guud ahaan noolayaashaas ilma aragtayga ah waxay u qaybsamaan 4 qaybood. kuwa loo yaqaano bacteria iyo kuwa loo yaqaano viruses iyo kuwa loo yaqaano fungi iyo kuwa loo yaqaano nooca afraad ah parasites. haddaba maxay ku kala duwan yihiin? kulligood guud ahaan waxay ku kala duwan yihiin waxbay ku kala duwan yihiin. haddaba mid kasta waxay ku kala duwan yihiin aan aragno. kan waa waxay ku kala duwanaayeen, kan waa viruska wuxuu ku duwan yahay iyo bacteriyadii iyo fungigii iyo parasiteskii. haddaba viruska marka ka hadlayno diameterkiisa ama cabirkiisa isaga waa maxay? virusku marka size-kiisa waa minute, aad iyo aad ayuu u yaryahay, waa 0.02 ilaa 0.3 micron cabirkaas ayuu leeyahay. ilma aragtayda bacteriyada loo yaqaanona waa small, iyadu wax yar bay viruska ka weyn tahay, cabirkeedana waa 0.3 ilaa iyo 2 micron. waxa jira fungiga isaga ilma aragtayga loo yaqaano cabirkiisu waa 3 to 10 micron. parasitesku iyagu qaarkood aad u waaweyn waa 15 to 25 micron. waxaa ka mid ah kuwa loo yaqaano trophocytes. okay, haddaan u nimaano cellskooda ama unugooda, maxaa yeelay cell horta definitionkiisa haddaad dib ugu laabatid oo iskuulka ardayda ay kusoo dhigteen oo ah cell waa maxay marka la define gareynayo ama la qeexayo waa the basic structural and functional unit of life. oo macnaheesu yahay waa structure-ka ama qaabka ugu basicsan, ugu asaasisan iyo shaqada ugu asaasisan ee u qabto maxay noolayaasha u qabto. marka cell waa maxay? waa shayga ugu asaasisan ee ugu yar oo noolayaasha loo qabto. okay, haddaba virusku isagu waa maxay? isagu waa acellular. kelmadda a waxay ku tusaysaa waxbaa maqan weeye macnaheeda, no cell, micnaha cell ma ay laha. marka acellular waa maxay? virusku cell ma leh. oo shaygan hadduusan cell lahayn marka ma noolaa? actually science ahaan viruseska ma ahan noolayaal, maxaa yeelay noolaha wixii ka dhigayeyba ma uu lahan. waxyaalaha kale oo viruska ka maqan waxaa ka mid ah nucleuskii oo ah bu'dii dhexda ku jirtay ama nuwaha af carabi wax lagu dhaho, bu'diina ma uu lahaa. laakiin bacteriyada celliska guud ahaan horta iyaga waxa loo qaybiyaa noolayaasha celliska iskale waxa loo qaybiyaa cells loo yaqaano prokaryotic cells iyo kuwa loo yaqaano eukaryotic cells. haddaba bacteriyadu bro means eukaryotic. haddaan ku hormaro eukaryotic cellska waa cellska iskule maxay? true nucleus ama bu sax ah. prokaryotic cellskan waa maxay? waa pseudonucleus ma ay lahan, laakiin waxay leeyihiin wax loo yaqaano nucleoid. kelmadda oid tan ugu dambeysa macnaheedu waxay kusiisaa waa something resembling, waa wax u eg, wax u soo eg. marka waxay kaloo aysan lahayn nuclear membrane, xuubkii dahaariyey nucleuska ma aysan lahan. haddaa u timaadid eukaryotic cellska oo cellska nucleuska saxda iska leh weeyaan kuwa kan. waxaa ka mid ah fungiska, marka waxa uu leeyahay maxay? true nucleus ayuu leeyahay, iyaga iyo parasiteska labaduba. marka nucleus bay leeyihiin. waxay kaloo oo nucleusku sii wadataa nuclear membrane bay sii wadataa. haddaa u nimaano cellska waxyaalihii ku jirjiray weeye qaybahan oo dhan waxaan ka hadlaynaa ilaa qaybtan oo dhan. cellska viruseska, cellska sida la ogyahay cellku waa inuu leeyahay dhaxalsidayaasha loo yaqaano DNA iyo RNA. DNA waxa loo soo gaabiyey deoxyribonucleic acid, RNA na waxa loo soo gaabiyey ribonucleic acid.
haddaba virusku maadaama isaga wuxuu kaga duwan yahay noolayaasha isagu labadaba ma leh oo DNA iyo RNA unugyaasha noolayaasha kale way wada leeyihiin laakiin virusku midkood ayuu leeyahay ama DNA buu leeyahay or macnaheedu orta waxay ku taysaa ama weeyaan RNA labada marka midkood ayuu leeyahay haddaba waxa kale oo virusku leeyahay one nucleocapsid hal capsid waa viruska structure-kiisa dhaxalsidaha uu ku rito oo dhexdiisa nucleus ku dhex jira ayuu leeyahay except in segmented or diploid viruses marka laga reebo virusyasha qaarkood diploid kale ama segmentska kuwa iskale okay bacteriyadu iyadu maadaama ay noolo weyn tahay iyada DNA RNA labadeebu way leedahay waxay kaloo ay leedahay bacteriyadu hal chromosome bay leedahay histoniskan iyo kuwa kan interaction-kooda gadaal ayaan ka sheegi doonaa DNA RNA fungaygu iyo parasiteskuba way leeyihiin laakiin maadaama iyagu ay organismskan xoogaa ay ka waaweyn yihiin bacteriyagu iyagu waxay leeyihiin more than one chromosome hal chromosome ka badan ayay leeyihiin viruska markaa u nimaano virusow see u noolaataa see u tarantaa virusku replicates in the host cell virusku keligii ma tarmi karee wuxuu ku dhex tarmaa selka gudihiisa ayuu ku dhex tarmaa laakiin bacteriyadu DNA replicates continuously bacteriyadu iyada DNA-deeda ayaa maxay toos u tarmata that's why bacteriyadu khasamaha sel kaliya inay hesho laakiin way noolaan kartaa haddii cuntadii u filan ay hesho fangayga iyo parasiteska waxay u leeyahay selku marka uu korayo uu rabo inuu sameeyo koriin waxa uu sameeyaa wax loo yaqaano cell cycle-ka marka waxa uu leeyahay meelo qaarkood oo ah growth stageskii iyo waxa uu leeyahay meelihii uu ku nasanayay gap stageskii oo jiida loo yaqaano iyo meelihii uu ku diyaarsanayay maxay DNA-da spaceka marka uu marayo waxa uu ku diyaarsadaa DNA-diisa iyo waxaas ku diyaarsadaa okay waxa uu timaadaa viruseska some have polycystic mRNA macnaha nooca mRNA-da ay leeyihiin siliska waxay leeyihiin messenger RNA marka waxay leeyihiin qaarkood polycystic mRNA macnaha many RNAs bay leeyihiin kuwaas oo cis form ah and post translational cleavage waxa la ay sameeyaan kuwan basic ahaanta waxaan filayaa qofka aad buu u soo wareerayaa marka introduction ahaan waa ina xasuusataa kaliya in ay leeyihiin maxay mRNA aad u badan bacteriyadu waxay leedahay iyadu laba nooc way yeelan kartaa monocystic mRNA way lahaan kartaa ama polycystic mRNA way lahaan kartaa meesha fangayga iyo parasitesku ay leeyihiin kaliya monocystic RNA okay selka uda u timaadid haddana waxaan ka hadlaynaa waxyaalihi selku dhex jiray virusku marka uu rabo inuu tarmo use hosts uu isticmaalaa oo noolo kale ayuu kusii kor noolaadaa host organelliskii buu ka isticmaalaa organelliskiisa obligate intercellular parasite weeyaan oo parasite obligate waa maxay waxa waajib ka inuu helo intercellular selka gudihiisa inuu ku dhex noolaado parasite ah oo ah ku dul nool parasite kale macnaha noolo kale ayuu kusii kor nool yahay no membrane bound organelles bacteriyadu membraneskeeda maxaa la dhahaa ama organelleskeeda ma leh maxaa la dhahaa membrane ku kor dahaaran halakan fangayga iyo parasitesku mitochondria and other membrane bound organelles bay leeyihiin fangayga iyo parasitesku waxay leeyihiin mitochondria waa meesha energy-ga u samaysa noolayaasha xitaa waaweyn bini'aadanka iyo kulli cellskooda marka waxay leeyihiin other membranes bay leeyihiin macnaha other organelles kale ayay leeyihiin sida cytoplasm macnaha waxa ku dhex jira gudahiisa mitochondria Golgi apparatus waxaas dhan baa ku jira ribosomes kuwaas dhan baa ku jira vacuoles okay virusesku marka iyagu ribosomes maba ay lahaaba laakiin ribosomeska uu leeyahay bacteriyada ay leedahay waxa loo yaqaan nooc laho 70S ribosome okay nooca fangayga iyo parasiteska ay leeyihiin waxa loo yaqaan 80S ribosome okay marka ka timaadid selkii cellular membrane xubka dahaara selka some are enveloped virusesku qaarkood waxa ay leeyihiin maxaa la dhahaa envelope ayuu leeyahayba but no membrane function laakiin envelope uma shaqeyso sidii membraneska oo kale laakiin kuwa marka u timaadid bacteriyada no sterolis except mycoplasma isaga maxay membraneskooda xubka dahaara ma ay laha marka laga reebo mycoplasmaha which have cholesterol kuwaas xubkooda waxa ku dhex jira maxay cholesterol laakiin sterol kuma u dhex jiro okay cholesterolku marka waa nooca
sida caadiga ah noolayaashu maadada ay leeyihiin oo lipidiska ah laakiin halakan dhirta maadaama lagu tiriyo fankayga inta badan la raaciyo dhirta sometimes waxaa arkaysaa isaga nooca uu leeyahay qaabka u xareysto waxaa loo yaqaanaa lipidiskiisa waxaa loo yaqaano ergosterol oo ah plant cholesterol is a major esterol saliidiisa ugu badan waa noocaas esterol such as cholesterol parasites laftigooda different sterols bay leeyihiin sida cholesterol baa ka mid ah cell wallka marka uu imo virusku sidiisaba cell wall ma leh derbigiisa salkiisa derbi dahaara ma leh maxaa yeelay selba ma leh kuwan salkooda waxa uu leeyahay maado loo yaqaano waxa dahaarta peptide oo glycan layer waa bacteriyada laakiin funguska waxa dahaara complex carbohydrate cell wallkooda fungayga waxa aad uga buuxa maadada loo yaqaano carbohydrateska waxaa ka mid ah maadooyinka carbohydrateska cell wallkooda ku dhex jira chitin maadada la dhaho glucagon iyo mannose kuwan parasitesku iyo wax cell wallaba maba ay lahan okay replication say u tarmaan make an assemble viral components kan marka uu virusku uu rabo inuu tarmo salki markuu dhex galo bini aadanka waxa ay ku dhex samaystaan maxay meeshaas ku dhex tarmaan kadibna qaybaha proteinskiisa kala duwanaa gooni baa lagu kala sameeyaa marka proteinka u samaysmaan ayuu hadhow isku soo aruursadaa qaabkaas ayuu hadhow virus caadiga ku dhalaa ama waxa loo yaqaano pyrogeny dhashiisa yaryar bakteeriyada marka ay tarmayso ay sii qaybsamayso waxay u qaybsantaa nooc loo yaqaano binary fissionku macnihiisu wax kale maahan waxa weeyaan dhexda ayay isku kala dhufataa macnaha halka bacteria dhexda iska kala qaybinaysaa laba xabo u qaybsamaysaa labada xabo xabadii waxay u qaybsamaysaa laba xabada kalena labo that means xabadii bacteriyada ah laba u qaybsantaa labada xabana afar xabo u qaybsamaan afarta xabana waxay u qaybsamaan 16 xabo marka labadu waxay u qaybsamaan afar afartu 8 8 16 ku 32 64 qaabkaas ay u tarmataa qaabka kuwa kan ay fangaygu uu samaysto oo tarmo waa maxay waa cytokinesis with mitosis and meiosis iyagoo isticmaalaya qaabab loo yaqaano mitosis iyo meiosis labadaas 10 video gaar ah ayaan ka sameynaya cytokinase with mitosis and meiosis labadaba qaabkaas oo ah qaab uu selku u qaybsamo u tarmo weeyaan okay waxa halkan u imaanaynaa selka maadaama laba nooc seliska loo qaybiyo guud ahaan waxa seliska jira nooc la dhaho prokaryotic cells oo ah kuwa aan lahayn prominent waa false waa pseudo ama waa been macnaha wuxuu leeyahay nucleus aan sax ahayn kuwan waxay leeyihiin nucleus sax ah nuclear structure-ka marka haddaan ka hadlo prokaryotic cellska sida bacteriyadu nuclearkeeda sidee u ogyahay so circular DNA ayay leedahay DNA-da bacteriyadu way wareegsan tahay molecules not covered with proteins dahaarkaas kuma ay dahaarna laakiin eukaryotiska nucleuskeeda waa complex of DNA and basic proteins ba ku dhex jira haddaba nuclear structures xagee bay ku yaalaan kuwan waa dense tangle of DNA waa DNA aad isku dhex jirta kaasoo ku dhex jirta cytoplasmka no nuclear membrane xub dahaaro oo gooni u ah nucleuskeena ma jiro laakiin eukaryotiska sida fungayga iyo protozooniska nucleuskooda waxaa ku dul dahaaran nuclear membrane DNA-dooda haddaa ka hadalno kuwan maadaama nucleus sax aysan lahayn DNA-dooda waxaa ku jirtaa wax loo yaqaano nucleoid oo ah something like nucleus iyo wax loo yaqaano plasmids ayay ku xareystaan dhaxalsidayaashooda laakiin kuwa kan eukaryotiska cellska sida fungayga maadaama selkiisu ka samaysan eukaryotic isaga waxa weeyaan wuxuu ku dhex DNA-giisa wuxuu dhex gashaa nucleuska iyo mitochondriyaha cytoplasmkiisa haddaa u nimaano oo ah qaybta dhexe oo nucleusta banaankeeda derbigeeda banaanka ka ah waxa weeyaan prokaryote bacteriyadu dhexdaas dhexe kuma ay laha mitochondria kuma leh no endoplasmic reticulum ma leh nooca ribosomka ay leeyihiin waa 70s mitochondria prokaryotic eukaryotic iyagu mitochondria leeyihiin endoplasmic reticulum bay leeyihiin ribosomes oo 70s bay leeyihiin cellulkooda haddaa u nimaano usually rigid cell wall prokaryotic inta badan cellulkooda aad buu adag yahay marka laga yimaado exception laakiin mycoplasmayaashu iyaga cellulkooda wuu jilicsan yahay kuwa kan eukaryotiga present only in fungi cellulku fungiga ayaa iska leh oo fungi wuxuu leeyahay cell wall cellulkaas wuxuu ka kooban yahay chitin maadada loo yaqaano oo carbohydrate iyo cellulose reproduction qaabka u tarmaan bacteriyada waa soo aragnay waa asexual ama wax loo yaqaano binary fission oo ah dhexda isku kala dhufata halka bacteria laba xab isku kala qaybisaa kuwa kan fungiga iyo protozooniska inta badan waa sexual oo ah male iyo female baa loo baahan yahay marka qaarkoodna asexual ayay u tarmaan
bakteeriyada marka haddaan u nimaano bakteeriyada runtii guud ahaan dhowr qaybood ayaa loo qaybiyaa halkan waxaa idinkugu dari karaa slide aan isleeyahay muhiim buu idin yahay waxaan u qaybin karnaa bakteeriyada guud ahaan kow iyadoo u fiirinayno depending on size haddaan dhahno okay sorry waxaan dhihi karnaa bacteria waxa loo qaybiyaa depending on gram stain ama depending on oxygen okay depending on oxygen markaa dhahno a waxa loo qaybiyaa bacteria loo yaqaano aerobic bacteria b loo yaqaano anaerobic bacteria c facultative anaerobe marka loo fiirinayo bacteriyada oxygenka sida uu isticmaasho bacteriyada guud ahaan saddex ayaa loo qaybiyaa bacteria aerobic waa maxay bacteria oxygen u baahan weeyaan anaerobicna waxa weeyaan bacteria bila oxygen macnaha oxygen aan ku noolaan karin weeyaan facultative-na waa maxay iyadoo labada dhinacba haddii oxygen waa haddii hesho way ku noolaan kartaa haddii oxygen weysana way ku noolaan kartaa qaabka kale oo bacteriyada loo qaybiyo waxa weeyaan okay depending on structure iyadoo loo fiirinayo bacteriyada qaabka ay u eg tahay okay bacteriyada qaarkeed waa maxay waa cocci oo ah macnaheedu yahay waa mid okay halkan ay ka dhig cocci oo ah warwareegsan oo ah circle ah qaarkoodna waa maxay bacilli oo iyadu maxay sidii saxankii oo kale bay u wareegsan tahay qaab saxan oo kale ah bay u wareegsan tahay iyo qaabka ugu dambeeya oo loo yaqaan maxay spiral waa maxay waa qaab tin oo kale ah okay cocci-da laftigeeda ayaa hadana wax loo qaybiyaa wax loo qaybiyaa streptococci marka macnaheed waa sidii tusbax oo kale bacteria saas iskugu daba dhigdhigan oo kale tusbax oo kale ah ooda caadiga aan ka dhigatan saas oo kale streptococci okay tusbax oo kale mid waxa jirta la dhaho staphylococci iyada waa maxay nooca kan structure macnaha cocci baan saddex u qaybinaynaa streptococci oo ah tusbax oo kale mid iskugu daba xiran staphylococci-na waxay iskugu daba xiran tahay group oo afar xabo bay isku haysataa halkan 4 xabaa taal halkan 4 xabaa taal halkan 4 xabaa taal halkan 4 xabaa taal ama 5 xabaa taal 5 xabaa group way macnaheeda bacilli iyadana maxay waxa loo qaybinaysaa maxay streptobacilli saas kala leedahay laftigeeda spiralka iyada waa maxay iyadu waa tinta oo kala mid ah okay inta marka laba qaybood hadda ku tusay qayb saddexaad ayaa jirta oo loo qaybinayo bacteriyada iyadoo loo fiirinayo nin laho Christian Graham ayaa actually bacteriyada basic ahaan baa rabaa inaan idin fahansiiyo wuxuu rabay inuu ogaado bacteriyadu oo dhan isku hal reer baa macnaha hal mid baa kadibna wuxuu ku kala sameeyay colors ayuu ku kala daray kadibna wuxuu arkay bacteriyadu midna inay qaadanayso maxay color midna color aysan qaadanayn kadib markaas wuxuu u kala qaybiyay maxay midna waa gram positive buu yiri midna gram negative ayuu yiri marka halkan waxaan leenahay depending on grams stain marka a waxa u qaybinaynaa maxay gram positive b na waxaan ka dhigaynaa maxay gram negative oo ah midii uu kalarka qaadan weeyay uu soo arkay bacteriyada marka hadda waxa u qaybinay by oxygen waxa u qaybinay structure-keeda iyadoo loo fiirin waxa u qaybinay gram stain-keeda haddana waxa u qaybin karnaa qayb saddexaad oo ah tan cudurka sababta iyo midka aan cudurka sababin oo ah waxa dhigi karnaa depending on pathogenicity awoodda u leedahay inay cudur sababto marka midna waa maxay waa normal flora midna waa maxay waa pathogenic bacteria waa cudur keene
marka normal florada midda ah iyada cudur ma keento saaxiib bayna la tahay waayo horaan saaxiibnay midda pathogenic bacteriada ahna waa maxay waa mid cadow nagu ah oo saaxiib aan nala ahayn oo dagaal adag nagu haysa nooc kale aan dhihi karnaa halkaan soo gelin karna oo ah opportunistic bacteria oo ah iyadu tani waa janis suge oo haddii janis ay hesho waa qaybta afraad oo haddii janis ay hesho maxaa la dhahaa waxay nagu sameynaysaa waa nala dagaalaysa example difaacina marka hoos u dhaco tii normal florada ahayd ayaa naga faa'iidaysan karta xitaa mug marka opportunistic bacteria marka bacteriada qaybahaas oo dhan ayay u qaybin kartaa kaas waa classification halkan cinwaanka dhigo classification waa kala saaridaya of bacteria kala saarideedii marka halkan nooca normal florada awaatan slairkan haddaa rabtaan kan kale ayuu noogu xigayaa okay nooca normal florada ah oo ah tan aan halkan kugu sheegay okay is found in the body surfaces jirka korkiisa skinkeena ayay iska kor saaran tahay gacmaheenay saaran tahay wejigeena saaran tahay with the outside environment because hawadii bay ku dhex jirtaa iyadu can cause infection if misplaced haddii meeshii loogu talagalay maahane meel kale ay tagto xanuun bay sababaysaa waxaa ka mid ah fecoflora to urinary tract infection midda saxrada la socota haddii ay kaadi mareenka gasho waa khatar cudur xun bay nagu sababi kartaa abdominal cavity midda caloosha loogu talagalashay ama skin flora haddii ama midda jirka korkeeda joogta haddii catheterka waxa la dhahaa marka qofka kaadida ku dhigto tuubo yar oo laga geliyo xubinta taranka si marka kaadida qofka lagu soo sii daayo or if person becomes compromised haddii qofka difaaciisa hoos u dhacane normal flora may overgrow oral trash waxaa dhici karta hadhow maxay inay korka kaga soo korto difaacaga marka hoos u dhaco oo saan kuu sheegay opportunistic ay kugu noqoto oo iyadana markaas jaanis suga ah caafimaadku ka qayb qaadata normal florada because waa protective host defense waa difaac baad bay noo tahay maxay sameynaysaa waxay maintain garaynaysaa oo noo ilaalinaysaa conditions such as pH power of hydrogen pH noo ilaalinaysa oo jirkeena maintain garanaysa pH 7 baan laga rabaa jirkeena so other organisms may not grow maxaa yeelay microorganismska pH 7 ka normalka ma jecla maxaa yeelay qaarkood waxay jecel yihiin maxay pH ah more acidic qaarkood waxay jecel pH ah maxay more alkaline acidic iyo alkaline macnaha mid aad acid u ah iyo mid more alkaline ah bacteria normal florada waxay kaloo samaysaa service nutritional functionka nutrition ka qayb qaadataa by sensation vitamin K iyo vitamin P bay labada vitamin bay noo samaysaa waxay kaloo samaysaa sometimes nutritionka waxay uga qayb qaadataa waxay bacteriadii ahayd pathogeniga ay waxay ku samaysaa maxay waxay ka dhamaysataa nutritionkii bay ka dhamaysataa la dagaasha important normal florada muhiimka ah meelaha ay ku jiraan site wax jirta mid dhiiga ku jirta blood iyo internal organs kuwan common or medical important organism non general sterile inta badan maxaa la dhahaa cudur iyo waxba ma keenaan wax dhibna ma leh laakiin waxa jirta mid cutaneous surface jirkeena korkiisa joogta cutaneous sida urethra and outer ear urethraha waa meesha tube kaadida soo marto iyo dhagta banaankeeda ma joogto waxa kamid ah bacteriadaas inta badan normal flora weeyaan Staphylococcus epidermidis less common but not notable organism tan laftigeeda sometimes normal flora ayay noqotaa Staphylococcus aureus oo iyada qaybahan ay kamid tahay sida waxa kaloo kamid ah Staphylococcus aureus iyo Corynebacteria diphtheria oo iyadu keento xanuunka loo yaqaan gowracatada Streptococci anaerobis Streptococci baa jirta anaerobic bacteria sida Streptococci yeast Candida species isagoo fungi yeastiga uu kamid yahay fungi bacteria sometimes normal florada waxay degan tahay nose sankeena korkiisa waxa kamid ah midda sankeena kor degan waxa loo yaqaan Staphylococcus aureus waxa kaloo kamid ah mararka qaarkood Streptococcus epidermidis diphtheroides assorted Streptococci waxa jirta mid oropharynx afka iyo pharynxka waa maxay cunaha mid dhex degan waxa kamid ah Fridaniis Streptococci including Streptococcus mutanis waxa kaloo jirta mid loo yaqaan assorted Streptococci non-pathogenic Neisseria non-tapeable Haemophilus influenza okay waxa kaloo jirta gingival surfaces midan iyadu waxay degtaa ciridka iyo meelahaas anaerobic weeyaan Bacteroides
baa ka mid ah. waxaa kaloo ka mid ah microorganismska meelahaas dega eridka iyo dega waxaa ka mid ah Brevotella, Fusobacterium, Streptococcus, Actinomyces oo isna qaybtan waa fungi. Normal flora microorganismska marka waxay iskugu jiraan bacteria kaliya ma fungus ayaa xitaa ka mid ah laftigooda. Stomach inta badan bacteriooyin normal flora ma joogaan. Colon mandhicirka microaerophilic and aerobic way bacteria nooca u dhaqmaysa hawadeedu aad bay u yartahay haddii kale wax awaa ama qaadato oxygen. inta badan babies breastfed only ciyaalka yarka oo naaska la nuujinayo ayay bacteriadan khatar u tahay in ay haddii ay isku bedeli kartaa maxaa la dhahaa medical important organism noqon kartaa. waxaa ka mid ah bifidobacterium adultigana bacteroides sida Brevotella, predominant organism, Escherichia iyo bifidobacterium. waxaa ka mid ah bacteriooyinka less common laakiin inta badan laftigooda marmar xanuun keeni kara oo normal florada ah Lactobacillus iyo Streptococci iyo bacterium Fusobacterium, Lactobacillus, assertive gram negative anaerobic rhodes, Enterococcus faecalis iyo other Streptococci. waxaa jirta bacteria vaginaha dhex degan waxa loo yaqaan Lactobacillus. wax kaloo ka mid ah kuwa kan assertive Streptococci, gram negative rhodes iyo diphtheria yeastiska laftigooda. normal florada waxa loo qaybiyaa resident flora oo iyadu mid degan. maxay samaysaa resident flora? These are fixed groups of microorganisms regularly found at their sites. kan meesheeda kama tagto. always waxa laga helaa siteskooda. mid waxa jirta transient flora iyadoo safarta. Example are groups of organisms found only for few hours, days or weeks. maalmay nala joogayaan kadibna iska baayaan iska tagayaan. The bacteria of normal flora can be one of the three depending on its relation with the host. saddex ayuu qaybsan kartaa normal floradu iyadoo ku xiran tahay hostiga ay la joogto. qofka markaas selka ay ku dhex noosho ama ku korkorayso ama bini'aadamka ay la joogto. waxaa jirta nooc la yaqaan symbionts oo ah this always beneficial. tan markaas faa'iido noo tahay khasaaro marna naguma hayso. waxaa ka mid ah because waxay noo samaysaa fitamiinada vitamin K iyo vitamin B. waxaa jirta mid commensals. These are the largest group of normal flora. ta ugu badan weeyaan. They are neither beneficial faa'iido nooma aha tan khasaarana nooma aha. waxaa dhici karta inay noo protect karayaan noo difaacaan the host ay ka difaacaan competition with pathogenic bacteria. tan khatarta xanuunka nagula jirta inay tartan la galaan oo ay naga celiyaan baa dhici karta. noocan ku sheegay oo saddexaad opportunistic normal flora. midda normal flora jaanis sugaha iyada waa maxay? These are commensals weeyaan iyagu jirkan base ka kor nool yihiin which may become pathogenic bay noqon karaan if they found chance haddii chance helaan way naga faa'iideysan karaan. if transferred from a normal site haddii meel caadi lagu yaqaanay bacteria normal florada ay kasoo tagto to abnormal site khatar bay nagu keeni karaan. if the host immunity is depressed haddii difaacaga hoos u dhacay the opportunistic and jaanis sugaha khatar weyn bay kugu keeni kartaa. Sterilization and disinfection hadda u nimaano chapterkaas horta waxaan kaga soo gudubnay qaybta bacteriyada. insha Allah qaybtan sterilizationka iyo disinfectionka next class ayaan si dhammaystiri doonaa. waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum.